calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabteen aan jecelnahay waa idin salaanay adduunka dacaladiisa meel walba oo aad ka joogtaan waa mar kale barnaamijkeenii faaqidaada cayaaraha qodobada idinkugu haynana waxaa kamid ah kooxda Manchester United ayaa caawa waxa ay u gudubtay semi-finaalka koobka FA Cup-ka kadib markay kooxda Norwich City kaga badisay 2-1. Ciyaarta waxaa lagu daray 30 daqiiqo. Daqiiqadii 118aad ayayna Manchester United waxay ku gaartay guushan ay ku gudubtay finaalka koobka FA Cup-ka. Kooxda Manchester United ayaana ciyaarta markay ahayd 51 daqiiqo waxa ay dhashatay goolkeeda koowaad ee furitaanka ciyaarta waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Ighalo oo ciyaarta ka dhigay 1-0. hase yeeshee Manchester United ayaa waxa ay xajisan weyday goolkeeda ay ku hormartay waxaana ciyaarta barbareeyay oo laga dhigay 1-1. hase yeeshee ciyaarta ayaa waxaa lagu daray 30 daqiiqadood. 30kii daqiiqo ee lagu daray markay ciyaarta maraysay daqiiqada 118aad waa kan Manchester United iyo goolkeedii guusha ee uu dhaliyay ciyaaryahanka difaaca kaga ciyaaro ee Maguire. waa kan goolka koowaad ee ciyaarta furitaanka. goolka barbaraha ee ciyaartana kooxda Manchester United waxaa laga dhaliyay daqiiqadii 71aad. alla muxuu gool ahaa. goolkaasna waxaa lagu barbareeyay kooxda Manchester United. goolka guushana waxaa dhaliyay ciyaaryahan Maguire daqiiqadii 118aad. ciyaartaasoo kusoo dhamaatay 2-1 ayna kooxda Manchester United ugu gudubtay finaalka koobka FA Cup-ka. ciyaartan waxaa xidiga garoonka la siiyay boorteeriga kooxda Norwich City. macalinka kooxda Manchester United ayaana ciyaarta kaamkii hore waxa uuna siiyay ciyaartoydiisa muhiimka ah inta badan sida Paul Pogba, Martial, Rashford iyo De Gea. hase yeeshee macalinka kooxda Norwich City oo waxba u harsaneyn horyaalkane sanadkan u dhacayo heerka labaad ee Serie B ayaa waxa uu kusoo shirtagay shaaxdiisii ugu adkeyd. si kastaba ha ahaatee kooxda Manchester United ayaa hadda waxa ay iska xaadirisay finaalka koobka FA Cup-ka. haddaba asxaabay kulanka kale xiisaha badnaa ee la wada sugayay waxa uu dhexmaray kooxaha Celta Vigo iyo kooxda Barcelona. ciyaartaas oo ku dhamaatay 2-2. ciyaartaasoo kooxda Barcelona aad iyo aad ay uga niyad jabeen natiijadii ciyaarta. Luis Alberto Suarez ayaana ka hadlay ciyaarta markii ay dhamaatay asigoona qiray in horyaalka uu gacantooda ka baxay ayna adag tahay sidii ay mar labaad ka dhibcaha ay uga ridi lahaayeen kooxda Real Madrid. hase yeeshee ciyaarta ayaa waxay ku dhamaatay 2-1 ayadana 2-2. kooxda Barcelona ayaa goolka koowaad ku hormartay daqiiqadii kaamkii hore ee ciyaarta waxaana u dhaliyay Luis Alberto Suarez. hase yeeshee markii la soo noqday ayaa waxa ay la imaatay kooxda Celta Vigo goolka barbara ah. mar labaad waxaa hogaanka ciyaarta qabatay kooxda Barcelona waxaana goolka u dhaliyay mar labaad Luis Alberto Suarez. hase yeeshee ciyaarta dhammaadkeedii ayaa waxaa laga dhaliyay Benzema niyad jabiyay taageeraha iyo ciyaartoyda kooxda Barcelona. haddaba aan aragno goolashii laga dhaliyay kooxda Barcelona. goolka koowaad ee kooxda Barcelona ayaana waxa uu dhashay daqiiqadii 16aad ee ciyaarta. Luis Alberto Suarez ayaana waxa uu ku dhaliyay teesto cajiib ah.
hase yeeshee markii la isku soo laabtay ciyaarta kaamkii dambe daqiiqadii 46aad waa kana kooxda Celta Vigo ayaa waxa ay la timid goolkeedii barbaraha. Goolkaas ayaana kooxda Barcelona lagu barbareeyay. Mar labaad waxaa gool dhalinayo Luis Alberto Suarez daqiiqadii 67aad ee ciyaarta, saasna waxa ay ciyaarta ku noqotay 2-1. Ciyaartan ayaa caawa Suarez u shidneyd waxa uuna ka dhaliyay 2 gool. Hase yeeshee dhammaadka ciyaarta ayaa Barcelona waxaa la gooyay wadnaha kadib markii laga dhaliyay gool Benzema laaga xurta ah daqiiqadii 88aad. Dhammaadkii ciyaarta ayaa Barcelona waxaa laga dhaliyay gool cajiib ah oo Benzema ah. Haddaba asxaabta ciyaarta markay dhamaatay waxaa ka hadlay ciyaaryahan Luis Suarez ayaa yiri Suarez ayaana waxa uu xusay ciyaartan ka horeysay ee Sevilla taasoo ay barbaro la galeen kooxda Sevilla. Haddaba Luis Alberto Suarez ayaa waxa uu yiri waxaan mar labaad luminay dhibco ayadoo kooxda Real Madridna ay ka faa'iideysanayso jaanisyada ama dulduleelada na soo gaarayo. Haddaba kooxda Real Madrid ayaa waxa ay ku hayn doontaa hoggaanka horyaalka La Liga 2 dhibcood haddii natiijo ay ka keenaan kulanka ay hadda la dheeli doonaan kooxda Espanyol. Suarez oo la hadlayay warbaahinta kadib ciyaarta ayaa sheegay in dareenkoodu aanu wanaagsanayn oo ay lumiyeen 2 dhibcood oo kale xilli ay La Liga kula dagaalamayaan Real Madrid. Waxaanu qiray in horyaalka gacantooda ka baxay. Dareenadoodu waa kuwo taaban, wuxuuna lumiyay 2 dhibcood annagoo u dagaalamayno La Liga hore gacantayada ayuu ugu jiray. Haddase waa inuunu sugno Real Madrid inay dhibco lumiso, ayuu yiri Suarez. Weeraryahanka oo dhaliyay 2 gool ee kooxdiisa waxa uu intaa ku daray dareenkeenu ma hagaagsano, waa mid niyad jab leh maadaama aanu 2 dhibcood oo kale luminay, ayuu yiri Luis Suarez. Suarez ayaa sidoo kale waxa uu qiray in ay weli harsan tahay ciyaaro adag oo ku soo food leh. Sidoo kale Atletico Madrid ayaa u imaan doonta kooxda Barcelona garoonkeeda Camp Nou, ciyaartaas oo weliba natiijada Barcelona si fiican usii go'aamin doonto. Suarez ayaa sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in qaladaadka 2 dhibcood ee caawa lumiyeen ay saxaan kulamada soo socda si aysan mar kale u lumin dhibco intaas ka badan, ayna sugaan natiijada kulanka Real Madrid iyo Espanyol. Sidoo kale Alberto Luis Suarez ayaa waxa uu sheegay in ay u taalo tababaraha wixii dhacay iyo qaladaadka kooxda ay suubinayaan in uu dib ka saxo. Sidoo kale Suarez ayaa waxa uu iska fogeeyay eedeyn tababaraha xaggiisa ah, asigoo sheegay in uu Celta Vigo wax kale u tegin oo u tagay in uu badiyo, balse nasiibka uu ka heliyay. Suarez ayaana hadalkiisa kusoo gabagabeeyay waa hadiyad Real Madrid loo siiyay hanashada La Liga. Wax sahlan ma ahan in 4 dhibcood la lumiyo 2 kulan. Hala Madrid guul wacan next match, ayuu yiri Luis Alberto Suarez oo u muuqday mid u hambalyeeyay kooxda Real Madrid walow ay ciyaar adag u dhiman yihiin labada kooxoodba. Sidoo kale waxaa ka mid ah
barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha asxaabay. Kooxda Liverpool oo ku guuleysatay horyaalka Premier League muddo kadib. Haddaba 10 qodob oo laga diiwaan geliyay ayaa idin haynaaye. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij lamida, sidaas iyo nabadgelyo.